بالدم والعروبة والمصير ضد العدوان الصهيوني المستمر نصيحة أرادها الله. wuxuu ahaa wiil yar oo ku barbaaray nolol adag oo agoonnimo ah, duruufaha adduunkuna ay ku tuureen inuu noqdo arijir baadiyaha ariga ku raaca si uu u helo wax uu cuno. inankan agoonka ah ayaa noqday sanooyin kadib hogaamiye laga cabsado bariga dhexe iyo dunida carabtaba, madaxweyne dalkiisii lagu soo duulay, la burburiyey, isagiina la deldelay. muuqaalkeenna maanta waxaynu ku soo qaadan doonnaa sooyaalkii Saddam Hussein, inagoo ogaan doonna meesha uu ka bilowday hayaankiisii nololeed iyo sidoo kale meesha uu ku soo idlaadayba. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina oo waa Bari Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Saddam Hussein waxa uu dhashay sanadkii 1937. ka hor dhalashadiisa waxa qoyskiisa soo wajahday nolol adag iyo ciriiri adduun. 3 bil ka hor dhalashadiisa waxa xanuun u geeriyooday aabihiis iyo walaalkiis. markii uu dhashay waxa la wareegay adeerkiis, hooyadiisna waxa guursaday nin kale. muddo kadib ayuu Saddam u soo wareegay dhanka hooyadii, balse ninka ay u dhaxday ayaa ahaa mid aad u naxariis daran. waxa uuna mar walba ciqaabi jiray Saddam. markii uu 10 sano gaaray ayuu ka baxsaday guriga hooyadii, wuxuuna u jihaystay dhanka magaalada Baghdad. muddo dheer oo uu iskoris ahaa kadib waxa uu mar kale miciin biday guriga adeerkiis oo markaasi ka mid ahaa siyaasiyiinta iyo dadka caanka ka ah magaalada Baghdad. Saddam adeerkiis ayaa u guuray magaalada Tikrit, halkaasi ayuuna Saddam ka bilaabay waxbarashada asaasiga. kadibna Baghdad ayuu ku soo laabtay oo uu ka sii waday waxbarashada ilaa dugsiga sare. waxa uu jaamacadda isaga tegay isaga oo aan weli dhammaysan si uu ugu biiro xisbiga kacaanka Bacad oo markaasi ka soo ifbaxay dhanka Suuriya, kuna baahinayay fikradihiisa. waxaa haldoor iyo qof uu ku daydo u noqday Jamaal Cabdinaasir oo waqti yar ka hor markaasi xukunka ka tuuray boqorkii Masar, iskuna magacaabay inuu yahay hogaamiyaha Masar iyo Shaam. sanadkii 1958 koox askar ah oo taabacsan xisbiga Bacad ayaa afgembiyey boqor Faysalkii Ciraaq, waxaana afgembigaasi lagu dilay boqorka iyo dhammaan qoyskiisa. waxaana talada la wareegay sareeye guuto Cabdikariim Qaasim. waxa uu dhisay xukuumad ay ka buuxaan dhallinyaradii xisbigu. nidaamkii boqortooyo ee ka jiray dalka Ciraaqna waxa uu ku bedelay mid jamhuuri ah. waqti gaaban kadib waxa uu khilaaf xooggan kala dhex galay Cabdikariim Qaasim iyo garabkii dhallinyarada ee xisbiga Bacad oo markaasi doonayay in Ciraaq lala mideeyo Suuriya iyo Masar si loo dhiso dowlad Carabeed oo xooggan. markii arrintan la isku fahmi waayey, Qaasim waxa uu dhisay xisbi cusub oo uu bixiyey xisbiga hanti-wadaagga Ciraaq. waxa uuna mamnuucay aragti walba oo la xiriirta mideynta Carabta. xisbiga Bacad oo arrintan aad uga carooday ayaa abaabulay shirqool xilka looga tuurayo sareeye guuto Cabdikariim, waxaana kooxda shirqoolkan fulinaysa madax looga dhigay Saddam Hussein. waxaa la dejiyey qorshe ah in rasaas la huwiyo kolonyada ra'iisul wasaare Qaasim, balse qayb ka mida kooxdan oo aan haysan tababar ku filan ayaa waxa ay howlgalkii bilaabeen xilli ka horeeya qorshaha, waxayna dhaawaceen Qaasim. howlgalkiina wuxuu noqday mid dhicisooba. markiiba waxaa Ciraaq ka baxsaday madaxdii kooxdii soo abaabushay iskudayga dil, waxaana xabsiga la dhigay dadkii lagu tuhmay inay ka tirsan yihiin xisbiga Bacad. Saddam ayaa u baxsaday dhanka Suuriya, kadibna uu uga sii gudbay Masar. waxa uuna halkaasi ku sugnaa ilaa iyo sanadkii 1963. koox taabacsan xisbiga Bacad ayaa xilka ka tuuray sareeye guuto Cabdikariim Qaasim, waxa ayna ku dhex toogteen qasriga madaxtooyada. kooxda xukunka la wareegtay ayaa xabsiyada ka sii daysay dadkii ka tirsanaa xisbigooda, waxayna ugaarsi ku bilaabeen dadkii taabacsanaa Qaasim. howlgal guri loo baarayay ayaa waxaa lagu toogtay dad lagu qiyaasay 1500 ilaa 5000 oo qof oo u badnaa shiicadii taageerada u ahayd Qaasim. waxaana xukunka la wareegay nin lagu magacaabo Cabdisalaam Caarif. Saddam Hussein howlgalkan wax qayb ah kuma lahayn. markii kooxdiisa ay qabsatay xukunka ayuu ku soo laabtay Baghdad, waxa uuna xubin hoose ka noqday maamulka cusub ee xisbiga. Saddam ayaa mar kale qayb ka noqday koox doonaysay inay shirqool ku disho madaxweynaha cusub ee xilka la wareegay ee la oranayay Cabdisalaam Caarif. isku daygan oo mar kale fashilmay ayaa keenay in Saddam uu u baxsado dhanka Syria, balse waa la soo qabtay waxaana lagu xukumay 2 sano oo xarig ah. sanadkii 1966
ayaa waxaa xabsiga ka bixiyey nin lagu magacaabo albakri oo markaasi ahaa ku-xigeenka hoggaanka xisbiga bacad garabka ciraaq. waqti gaaban kadibna waxaa shil diyaaradeed ku geeriyooday madaxweynihii ciraaq ee cabdisalaam caarif, waxaana xilka ku wareegay walaalkii cabdiraxmaan caarif. sadaam saaxiibkiis albakri oo saamayn ku lahaa madaxtooyada ayaa heshiis dhex dhigay sadaam iyo madaxweynaha cusub. cafis ayaana loo fidiyey sadaam, waxaana loo magacaabay inuu noqdo madaxa sirdoonka ee xisbiga bacad ee ciraaq oo markaasi ka go'ay midkii suuriya, noqdayna xisbi madax bannaan. mar kale sadaam iyo saaxiibadii waxaa galay damac ah in xilka ay ka tuuraan madaxweynaha cusub ee cabdiraxmaan caarif. markan howlgalkoodii waa uu guulaystay. afgembi aan dhiig ku daadan ayay xilkii kula wareegeen, waxaana madaxweyne ciraaq ka noqday sadaam saaxiibkii axmed albakri. albakri ayaa sadaam u magacaabay madaxweyne ku-xigeen iyo taliye ku-xigeenka hoggaanka dhexe ee ciidanka xisbiga bacad. waxaa sare u kacday saamaynta uu sadaam ku dhex leeyahay talada ciraaq, si gaar ahna gudaha xisbiga bacad. waxa uu si muuqata u ahaa taayarka wareejinaya siyaasadda ciraaq, maadaama albakri uu ahaa qof waayeel ah oo aan u firfircawnayn sida sadaam. waxa uuna isbeddel badan ku sameeyey siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga ciraaq, wuxuuna ahaa qofka ku matala ciraaq siyaasadda arrimaha dibadda. waxa uu kor u qaaday wax soo saarka shidaalka ciraaq. waxa uu sidoo kale hogaamiye u ahaa ololihii ciribtirka jahliga ee ciraaq. waxa uuna waqti gaaban ciraaq u suurtageliyey in ay yeelato nidaamka caafimaad iyo waxbarasho ee ugu fiican bariga dhexe. waxa uu sidoo kale sare u qaaday tayada iyo awoodda ciidanka difaaca oo toddobaatanaadkii noqday kuwo ka dhex muuqda bariga dhexe. sanadkii 1979 waxaa sababo caafimaad iyo cadaadis xisbiga dhexdiisa ah dartiis xilkii iska casilay madaxweyne albakri, waxaana ciraaq madaxweyne ka noqday ku-xigeenkiisii sadaam xuseen. xukunkiisa ayaa waxa uu ku soo aaday bilo yar kadib markii ay iiraan la wareegeen kooxda la baxday gacaanka islaamiga ah oo ahayd koox shiico mayal adag ah. kooxdan ayaa saamayn dhanka ammaanka ah ku yeelatay ciraaq. sadaam inkastoo markii horeba uu talada dalka gacanta ku hayay, haddana markii uu si rasmi ah madaxweynaha u noqday waxa uu xoogga saaray sidii uu xukunka ciidanka iyo go'aanada dalka uu gacantiisa u hoskani lahaa si buuxda. bartamihii sanadkii 1980 waxaa xoogaystay khilaafka u dhexeeya ciraaq iyo xukunka cusub ee iiraan, muran dhanka xuduudda ah iyo sidoo kale ciraaq oo ku eedaysay iiraan inay u soo hubaynayso kooxaha kurdiyiinta iyo kuwa shiicada ah si ay qalqal amni ugu beeraan ciraaq. ciidanka cirka ee ciraaq ayaa duqeymo u geystay magaalada tahraan ee caasimadda iiraan, waxayna si gooni ah u beegsadeen garoonka diyaaradaha ee tahraan. waxay sidoo kale gudaha u galeen iiraan. ciidankan ciraaq oo waqtigaasi aad uga awood badnaa kuwa iiraan ayaa si fudud cagta ku mariyey difaaca iiraan. sadaam waxa uu taageero dhaqaale iyo mid militari ku garab taagnaa Maraykanka, Yurub iyo waddamada Khaliijka oo aad uga soo horjeeday xukunka shiicada ee iiraan. dagaalkan ayaa si toos ah u socday sannadihii 1980 ilaa 1982. xilliyadan waxay ahaayeen xilliyadii uu ugu xoogganaa dagaalku, laakiin wuxuu si rasmi ah u soo afjarmay sannadkii 1988 markii xabad joojin ay kala dhex dhigtay qaramada midoobay. ciidanka ciraaqna uu isaga soo baxay dhammaan dhulkii ay ka qabsadeen iiraan. dagaalkan waxaa aad uga faa'iiday waddamada galbeedka iyo midoogii Sofiyeet oo hub aad u badan ka iibinayay labada dal. ciraaq ayaa waddamada Yurub iyo Maraykanka ka iibsatay hub qiimihiisu gaarayo $14 bilyan oo dollar, halka Iiraanna ay ka iibsatay midoogii Sofiyeet, Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi hub qiimihiisa lagu sheegay $8 bilyan oo dollar. macaashkan dowladaha hubka soo saara ay faa'iideen iyo labada waddan oo shidaalkooda qiimo raqiis ah ku bixinayay si ay hub u helaan ayaa sababtay in dagaalku sii dheeraado. dagaalkii dhex maray labadan dal ayaa ka tegay saamayn ah inuu burburo dhaqaalaha labada dal. waxaa sidoo kale ku dhintay askar lagu qiyaaso 500,000 oo askari oo labada dhinac ah iyo sidoo kale ku dhowaad 100,000 oo ah shacabkii deganaa deegaanada lagu dagaalamayay. cadaadiska dhaqaale ee soo food saaray ciraaq ayaa keenay in ciraaq u baahato in ay kordhiso wax soo saarkeeda shidaalka. waxaa sidoo kale xumaaday xiriirkii kala dhexeeyay Maraykanka kadib markii uu hanjabaad hawada u mariyey Israa'iil, isagoo sheegay inuu hubka kiimikada ah ku garaaci doono haddii aysan joojin burburinta deegaanada Falastiin, oo markaasi uu xawli uga socday iska caabintii loo yaqaanay intifaada. dalalka Yurub iyo Maraykanka
ayaa cadaadis dhaqaale saaray xukunkii Saddam. arrintan ayaa Ciraaq ku qasabtay inuu xiriir dhanka militari ah la sameeyo Midowgii Soviet oo markaasi gunaanad sii mareeyay. dhanka kale madaxdii Carabta ayaa wejiga u bedeshay Saddam, waxa ayna ku wajaheen siyaasad ka duwan midii ay u isticmaalayeen dagaalkii Iiraan. waxa uu kaalmo dhaqaale weydiistay dalka Kuwait ayaa arrintan ka biyo diiday. Saddam ayaa codsi u diray wadamada saliidda soo saara ee ku midaysan ururka OPEC, isaga oo weydiistay in kor loo qaado qiimaha shidaalka si uu dhaqaalaha dalkiisa u soo kabo. wadamada Carabta oo ay Kuwait ugu horeyso ayaa mar kale arrintan diiday, sidaasi ayuuna codsigii Saddam ku burburay. arrintan ayaa caro ku beertay dowladdii Ciraaq, waxa uuna abaabulay dagaal uu ku qabsanayo ceelal shidaal oo ku yaala xuduudka Ciraaq iyo Kuwait si uu u go'doomiyo dhaqaalaha Kuwait. dhammaadka sanadkii 1990kii si buuxda ayuu ula wareegay Kuwait maadaama aysan lahayn awood ay isaga celiso ciidanka Ciraaq. waxa uuna ku dhawaaqay inay tahay qayb ka mid ah Ciraaq. wadamada Carabta ayaa qiiladhaan u dirsaday Maraykanka, waxaana Kuwait weerar ku soo qaaday xulafo uu hogaaminayo Maraykanka balse wata magaca Qaramada Midoobay, kuwaasi oo ugu dambayn sanadkii 1991kii ka saaray ciidankii Ciraaq gudaha Kuwait, waxaana cunaqabateyn dhaqaale lagu soo rogay Ciraaq. Maraykanka iyo xulafadiisa ayaa bilaabay in ay Ciraaq ku eedeeyaan haysashada hubka kiimikada ah ee wax kumaada. xilliyo badanna waxa ay duqeymo ka geysteen goobo ay ku sheegeen in lagu bacrimiyo hubka kiimikada ah oo ay Ciraaq si qarsoodi ah u samaysanayso. sanadba sanadka ka dambeeya waxaa la sii adkeynayay cunaqabateynta saaran Ciraaq ilaa laga soo gaaro sanadkii 2001 markii Maraykanka laga fuliyey weeraro lagu burburiyey daaraha dhaqaalaha adduunka iyo sidoo kale xarunta gaashaandhigga Maraykanka ee loo yaqaano Pentagon. madaxweynihii xilligaasi ee dalka Maraykanka Bush ayaa wadamo ay Ciraaq ku jirto ku tilmaamay inay yihiin xulafada sharta. weerarka lagu soo qaaday Maraykankana ay iyagu ka dambeeyeen. sanadkii 2003 Maraykanka iyo xulafadiisa NATO waxa ay si rasmi ah u abaabuleen weerar lagu qaadayo Ciraaq oo xukunka looga tuurayo Saddam Hussein. kadib 3 isbuuc oo weerar jihooyin kala duwan ah, ciidamada Ciraaq ayaa faaruujiyey caasimadda Baghdad, waxayna u bedeleen weerarkooda qaab jabhadeyn ah. wixii markaasi ka dambeeyey Maraykanka ayaa Ciraaq u sameeyey dowlad isaga taabacsan, dalkuna waxa uu galay burbur iyo amni darro baahsan oo ilaa maanta Ciraaq haysata kadib 18 sano markii ay xilka ka tuureen Saddam Hussein. Saddam oo muddo ku dhumaalaysanayay gudaha gobolka Tikrit ayaa markii dambe waxaa jaasuusay nin wax ka ogaa xogta halka uu joogo. kadib markii Maraykanku lacag dul dhigay qofkii soo sheega xogta Saddam Hussein iyo halka uu ku dhumaalaysanayo, markii dambena ciidanka Maraykanka ayaa gacanta ku soo dhigay dhammaadka sanadkii 2003. bishii Juun 2004 ayuu Maraykanku gacanta u geliyey isaga iyo 14 sarkaal oo ka tirsanaa xukuumaddiisii maxkamad ay maamulaan dowladda Shiicada ah ee Maraykanku taageerayay. waxa ayna Saddam xukun daldalaad ah ku fuliyeen 30 Diseembar 2006. dilkiisii ayaa lagu beegay maalin Ciidul Adxa looga dabaaldegayo dunida muslimka. taariikhda Saddam waxaa laga baran karaa jidkii dheeraa ee uu u soo maray qabashada xukunka iyo sida mar walba uu u ahaa mid ku dhex jira siyaasad qaacido adag isticmaalaysa oo isbeddel badan. dhanka kale waxaa laga baran karaa sida wadamada galbeedku ay u adeegsadaan madaxda dunida Islaamka oo markii ay dantooda ka gaaraan ku suntaan in ay yihiin kuwo liddi ku ah amniga caalamka, kadibna qalalaase geliya dalka ay xukumaan. Saddam kadib waxaa burburtay noloshii ka jirtay dalka Ciraaq oo waqti ahayd midda ugu horeysa wadamada bariga dhexe dhan kasta oo nolosha ah, sida caafimaadka, dhaqaalaha, waxbarashada iyo awoodda ciidankaba. maanta dadkeedu waxa ay qaxooti ku yihiin daafaha caalamka, dalkooduna waxa uu noqday mid markii la burburiyey la waayay qaab loo xalliyo, sidoo kalena noqday saldhig ay ku hardamaan wadamada iska soo horjeeda sida Iiraan iyo Maraykanka. intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta. haddii uu ku qanciyey muuqaalku, ha ilaawin inaad la wadaagtid asxaabtaada, sidoo kalena aad leeg saartid si uu u sii faafo. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.